waxaana mathal loogu soo qaatay wax bani aadam uun halkudhig looga dhigo ama tusaale looga dhigo ama barbardhig loogu soo qaato laba shay oo ugu liita baa loo soo qaatay suuraddan iyo suurati alacraaf. mathalu aladiina xumiluu tawraata huma lam yaxmiluuha maxaa ku xigay kamathali alximaar, dameer bay la mid yihiin yaxmilu asfaaran oo kutub sida, dameer kutub xambaarsan oo kutubi ku raran tahay wuxuu ka garanayaa waxa saaran. hadduu raba intuu halkaa taga buu ciidda ku galgalanaya isagoo kutubtii wada. ayuha alikhwatu almu'minuun, waxaan hadda ka horan tilmaannay inaan khudbooyinka qeyb ka mida kusoo qaadan doono ahmiyadda iyo qiimaha iyo sharafta ilaahay agtiisa uu ka leeyahay hada alyawm alcadiim, yowm aljumca, maalinta jumcada ah, iyo axkaamta iyo fadliga iyo khayrka ay shareecadu gelisay maalinta jumcada iyo abwaabta iyo meelaha kala duwan ee tirada badan ee khayrkaasi uu kaga jiro maalinta jumcada. waxaan marka soo qaadan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo annagoo jumcadan ka bilaabaynaa, jumcooyinka soo socda haddii ilaahay yidhaahdo aan u qeybin doonaa weynaanta iyo meesha weynaantani ay uga timid iyo waxa shareecadu ay ka tidhi. nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka yidhi, qur-aanku waxa uu ka yidhi maalinta jumcada. waana maalin weyn oo shareecadu ay amartay sida suuradda ku iman doonta inay dadka muslimiinta ah kulligood darajaad kastoy kala lahaayeen iyo wax kastoy ku kala mashquulsanaayeen usbuuca dhexdiisa inay maalintaa isu yimaadaan. waxay ka wada hadlayaanna waxaan kusoo qaadan doonaa meesheeda ugu tegayna. laakiin intaan jumcada laga hadlin oo aayadaha jumcada ka hadlaya aysan suuraddu ka hadlin, ilaahay tabaaraka wa tacaala laba arrimood buu ka hormariyey. laba arrimoodoo waaweyn ayuu ka hormariyey. in la sharxo cadamada ilaahay, weynaanta ilaahay. ilaahay tabaaraka wa tacaala wixii aan bani aadamka ahayn oo dhan iyagoo isku duuban hal cod inay ilaahay ku weyneeyaan, iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo risaaladiisa sida ay u weyn tahay ee ay sharaf u xambaarsan tahay ee ay u tahay gallad ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku galladaystay iyo nicmo ilaahay ugu nicmeeyey uu u doortay ummaddan. qodob waa kaasoo waa towxiidkii, shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah. qodobka labaad ee laga hormariyeyna waxaa weeye in la isaga digo oo xumaantoodii la isu tilmaamo oo laga qayliyo ummadihii inaga horreeyey ee laga beddel qaatay markii diintii loo soo dejiyey iyo shareecadii loo soo dejiyey iyo rusushii loo soo diray intaba ay khilaafeen, way gadaal ka tuureen. ilaahay uu go-aamiyey in laga beddel qaato oo rususha waagii hore waxaa laga soo diri jiray bani israa'iil. kaanat banuu israa'iila tasuusuhum alambiyaa buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. reer bani israa'iil waxaa lagu sharfay inay ambiya maamuli jirtay, rusul baa maamuli jiray. xataa boqoradooda rasuul baa la ag fadhiisin jiray maraaxisha qaarkood oo hoggaamin jiray. markay waxaasoo dhan diideen oo nicmadii ilaahay aqbali waayeen baa ilaahay wuxuu go-aamiyey inuu ka beddel qaato oo ummada aan reer bani israa'iil ahayn rasuulka ugu dambeeya laga soo saaro. waxaana lagu sheegay suuradda
sababta keentay in laga bedel qaato inay ahayd iyagoo sharcigii haysta oo sharcigii uu dhex yaallo inay wax kale miiska soo saarteen oo sharciga ay arki waayeen oo sharcigu uu la fiicnaan waayey oo sharcigu uu la weynaan waayey oo wax kale ay doorteen waxaana mathal loogu soo qaatay wax bani aadam uun halku dhig looga dhigo ama tusaale looga dhigo ama barbardhig loogu soo qaato laba shay oo ugu liita baa loo soo qaatay suuraddan iyo suurat alacraaf mathalu aladiina xumiluu الtawraata huma lam yaxmiluuha maxaa ku xigay kamathali اlximaar dameer bay la mid yihiin yaxmilu asfaaran oo kutub sida dameer kutub xambaarsan oo kutubi ku raran tahay wuxuu ka garanayaa waxa saaran hadduu rabo intuu halkaa taga buu ciidda ku galgalanaya isagoo kutubtii wada hadduu rabo dameer kale intuu arko yuu ku boodayaa isagoo kutubtii xambaarsan oo markaasuu daadinaya siduu rabuu yeelaya mathalka aada ugu fiirsada iyagoo kitaabkii hayuu dhex yaallo bay waxay rabaan ku kacayaan baa laga wadaa waxay ku gartabaan oo ay garta ku qaataan bay waayayaan leanna kitaabkan uma jeedaan meel kalena waxaa tusaale loogu soo qaatay kamathali اlkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatrukhu yalhath ayga waxaa la yidhi haddaad waraabisana waa hiraanhiraya haddaad quudiso waa hiraanhiraya haddaad hoos ku xidho waa hiraanhiraya haddaad meel qabow geyso waa hiraanhiraya haddaad dhabtaada saarto haddaad cashiga boqorka saartid waa hiraanhiraya haddaad caydhiso intaad bur qaadato ama wax adag qaadato aada caydhsatana waa isbeddel ma leh haddii wixii ugu qiimo badnaa la siiyeyna macsi bay samaynayaan haddii dhinac walba uma roonaba qoladaasaa laga hormariyay oo looga jeedo haddaydaan waddadoodii ka leexanin siday yihiin baad noqonaysaan iyaga ayaad taageero iyo atbaac u noqonaysaan mathalkii iyaga unbaa idinkana idinku dhacay ayaa idinku dhacay labadaasaa laga hormariyey kadib baa waxaa loo yimid jumcada xaalkeeda walaalayaal jumcadu waa sahay usbuuca loo sahay qaato waan faahfaahin doonaa markaan meesheeda tagno jumcadan waxaan ku hormarnay ilaahay tabaaraka wa tacaala siduu naftiisa u ammaanay iyo sababta uu ku mutaystay inuu is-ammaano iyo inay dadku ammaanaan insaanka waxaa ku beeran oo qalbigiisa ku jira cid kasta oo awood leh ama cid kasta oo waxhaysata yah in la ammaano inuu mudan yahay ama la hoostegi karo insaanka waa ku beeranta ilaahay tabaaraka wa tacaala wuu ku soo celceliyey qur-aanka ilaahay weynankiisa ilaahay waxa uu haysto ilaahay waxa uu leeyahay ilaahay waxa uu u geysan kara addoommadiisa hadday daacada ka tagaan aad baa loogu soo celceliyey waa aragteen ilaa heer waxaa la gaadhsiiyey intaasoo suuradood oo qur-aanka ka mid ah lagu bilaabay tasbiixdiisa suurad walbana waxay ku fiican tahay tasbiixdaas waxa ka dambeeya inaan daraasayno waana arki doonnaa haddii la hayda laakiin suurat اlisraa iyo suurat اlxadiid iyo suurat اlxashri suurat asaf iyo suuraddan hadda aan ku jirno iyo suurat الtaqaabun iyo suurat اlaclaa kulligood waxaa lagu bilaabay tasbiixdaas mar mudaaric laga dhigay iyo mar amar laga dhigay iyo mar masder laga dhigay wahaakada waxaa kaloo la tilmaamay suurat اlisraa iyadoo inaga laynagu baraarujinayo oo inaga layna xusuusinayo lainoogana digayo inaan makhluuqaadkan ilaahay oo dhan aan shaad ka noqono oon ka duwanaano oo sidaasna halaag aan ku mutaysano baa waxaa laynoo sheegay inaan ogaano
makhluuqaadka ilaahay oo dhan ee inagu hareeraysan inay ilaahay caabudayaan. weliba kuwa waaweyn baa la soo qaatay tusabbixu lahu الsamaawaatu الsabcu wاlardu ay bimacnaa wاlaradiin. markaasaa waxaa la yidhi wain min shayin ilaa yusabbixu bixamdi. in min shayin baa la iyadoo markii horeba nakiro ay ahayd, carabiga way fahmayaan dadku, iyadoo markii horeba shay ay nakiro ahayd baa haddana waxaa laga hormariyey ma, in oo bimacnaa ma ah. waxaa la yidhaahdaa annakira fi siyaaqi الnahyi aw الnafyi aw اlistifhaami aw الshart waxay faa'iideysaa cumuum, ayay faa'iideysaa. wax kasta oo adduunka ku jira, waxaan naqaani iyo waxaynaan aqoonin, waxaan aragnay iyo waxaynaan aragba oo samaawaadka iyo arladaa ku jira, ilaa yusabbixu bixamdi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahu. maxaan u maqli weynay? haddii aan tasbiixdooda oo dhan maqli lahayn oo shaqooyinka ay hayaan iyo daacada ay ku jiraan aan arki lahayn, maba aynaan noolaaneenba. innahu kaana xaliiman gafuura. intaasoo dhan waxaa ka daran oo kabaysa adduunkan oo dhan ilaahay buu sujuudaya. maxaa looga jeedaa marka in lina xasuusiyo? alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi الsamaawaati waman fi اlard. ya war sow ma jeedaan, sow ma ogidin in samaawaadka makhluuqaadka ku jira iyo arlooyinka makhluuqaadka ku jira, kuwii waaweynaa baa la soo qaatay, الshamsu wاlqamaru wاlnujuumu wاljibaalu wاshajaru wاddawaabu. qoraxdii iyo dayixii iyo xidigihii iyo buurihii, geedihii nooc kastoo yihiin iyo wax kastoo arlada ku dul socda, nooc kasta uu yahayba. iyo maxaa la raaciyey? wakathiiru min annaas, in badan oo dadkii ka mid ah. wakathiir haddii la yidhi maxaa laga fahmaya? wakathiirun xaqa calayhi alcadaab. adaa kala dooranaya. adiguma waxaad ku jirtaa qolada la leeyahay wakathiiru min annaasi yusabbixu lahu man fi yusabbixu lilah, mise waxaad ku jirtaa kathiirun xaqa calayhi alcadaab. qofkii ka leexdana waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim. qofkii bannaankaa mara oo ilaahay yidhaahda anigu waan ku diiday, isagaa naftiisa dulleeyay. walaalayaal, adduunkan dhinac buu u socdaa. adduunkan ilaahay buu hoggaansan yahay. inaan ka hadhna ma fiicna, inaan fahmi weynana ma fiicna, ma fiicna. walihaada baa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiiska saxiixa khudbada aan kusoo gabagabaynay, iyadoo weliba aayadda la waafajinayo oo digitaanka reer bani israa'iil laynooga digayana la waafajinayo, adduunkan inaan shaad laga noqonina laynoo digayo, inaan isdaba qabanana laynoogu ishaarayo, baa wuxuu leeyahay xadiiska saxiixa imaam muslim uu wariyey, ilaahii naftaydu ay gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartay, qof imaqlayaa ma jiro waxa aan la imid maqlaya, yahuudi ha ahaado, nasraani ha ahaado, cidduu raba ha ahaado, boqor ha ahaado, madax ha ahaado, maalqabeen ha ahaado, wuxuu raba ha ahaado, qof imaqlayaa ma jiro oo marka uu dhimanayana la dhimanaya isagoo wixii aan la imid wax kamida diidan. maalintuu dhimanayo waxay naftu ka baxaysaa isagoo wixii aan la imid diidan, ama kulligii ha diido ama qeyb ka mida ha diido. sababtaa shareecada qeyb ka mida in la ogolaado, qeyb ka midana la diido, muslim lagu noqon maayo. afatu'minuuna bibacdi اlkitaabi, maxaa ku xigay? watakfuruuna bibacd. in qeyb la diido kufri baa laga cabira. ilaa uma yamuutu wa huwa walam yu'min biاladii ursiltu bih ilaa kaana min asxaabi الnaar. marka walaalayaal, ilaahay tabaaraka wa tacaala oo isagu isweyneeyey
oo isagu inoo sharxay. waxay naga hortaagan ma jiro inaan adeecno, shaksi shaksi, qoys qoys, guri guri, kulli aan dib isugu laabanno. marka aan dib isugu laabanno waxa shareecadu ay ka tidhi reer bani israa'iilna iyo sida ay shareecadu uga digtayna wixii aan ka gaadhno khudbadaha dambaan kusoo qaadan doonaa haddii ilaha yidhaahdo. kadibna waxaan uga gudbaynaa jumcadii aan u soconnay inaan sharaxno oo iyaduna qaadan doonta dhowr jumco haddii ilaha yidhaahdo. ثuma saluu wasalimuu calى nabiyi اlأmiin imtihaaلا liأmri اllahi tabaaraka wa tacaala. ina allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna calى الnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima. allahuma salli calى muxamedi wacalى ali muxamed kama sallayta calى ibraahima wacalى ali ibraahim wbaarik calى muxamedi wacalى ali muxamed kama baarakta calى ibraahima wacalى ali ibraahim inaka xamiid majiid. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل لهم بطانة صالحة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا ووفقنا اللهم لما تحبه وترضى. آمين آمين وأقم